Ethiopia oo soo dhaxgashay khilaafka Imaaraadka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya laascaanoodna ciidamadii ugu badnaa ayaa la geeyay oo dhinaca dawladda Soomaaliya ka socda kuwa taageera Asad Diyaano ee BSF loo yaqaano Puntland inta ay ka baxeen ayaa laascaanood ay gaareen xaaladda laascaanood wararkii ugu dambeeyay khilaafka Imaaraadka iyo dawladda dhexe ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada Ethiopia sababta rasmiga ah ee ay u soo kala dhaxgashay khilaafkan ayaan halkan ku eegi doonaa haddii ay tahay markaa kugu horeysay ee aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan sidoo kalena meel dheer nala gaarsiisaan si aad u heshaan xogaha degdega ah iyo falanqeynada la xiriira arrimaha siyaasadda iyo halka ay marayaan xaaladaha guud ee Soomaaliya mar kale soo dhawaada saaxiibayaal waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sida badankiin aad ka warqabtaan halkaas waxaa ku wajahan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya maxaa Laascaanood xilligan ka socda waxaa la warinayaa in ciidamadii ugu badnaa oo ka socda BSF si gaar ahna uga amar qaata taliye Asad Diyaano oo ah taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay maanta gaareen gudaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maalinimadii shalay ayuu taliyuhu gaaray iyo wafdi saraakiil ah oo uu horkacayay halkaas oo ay siyaabooyin kala duwan ugu soo dhaweeyeen madaxda SSC Khaatumo ama maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya saraakiil ciidan ayaa ku jira dadka soo dhaweeyay Asad Diyaano iyo xubnihii dowladda federaalka Soomaaliya ka socday ee gaaray gudaha magaaladaasi Laascaanood ee gobolka Sool maanta waxaa gaaray wafdi wasiir ah oo ay ku jiraan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqhi oo inta uusan ka bixin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku soo qoray waxaan u soconnaa Somaliland gaar ahaan magaalada Laascaanood ayuu yiri hadalkaas oo hadalhayn xooggan ka dhaxdhaliyay baraha bulshada wasiirka ayaa kol hore waxa uu munaafiq aamusan ku tilmaamay Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Somaliland kaas oo uu tilmaamay in dhibaato xooggan uu ku yahay gudaha Soomaaliya gaar ahaan Somaliland xilligan aqoonsi beenaadka ka heshay Israel wafdigan wasiirada ah ee uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga waxa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland waxaase la warinayaa in xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xooggan iyo xiisad siyaasadeed oo aad u xooggan ayaa laga dareemayaa gudaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool wafdigan markii ay gaareen halkaas soo dhaweyn ayaa loo sameeyay waxaana loo galbiyay guriga martida ee SSC Khaatumo ama maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxa halkaas kulamo kala duwan ay kula qaadanayaan xubnihii dowladda Soomaaliya ka socday ee gaaray gudaha magaaladaasi saacadihii la soo dhaafay kuwaas oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Asad Diyaano iyo xubno saraakiil ah oo halkaasi gaaray ciidamadii ugu badnaa oo dhinaca Puntland ka yimid gaar ahaan BSF ciidamada loo yaqaano oo si gaar ah uga amar qaata taliyaha booliiska Soomaaliyeedna maanta waxay ka soo ruuqaansadeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Nugaal iyaga oo safar ku jiray waxaa muddo saacadaha kadib ay gaareen gudaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qayb ka mid ah ammaanka gobolka ayaa la sheegay in loo dhiibay ciidamadan iyaga oo waliba ka qayb qaadanaya isu socodka dadka iyo gaadiidka si xasiloon loogana hortagi lahaa falalka lidiga ku ah ammaanka iyadoo cabsi xooggan halkaas ay ka jirto oo ah in Somaliland ay weerar ku qaado waliba gantaala ah xuduudda labada maamul ee Somaliland iyo sidoo kale waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo Somaliland ay ku dadaalayso in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya safarkiisa la istaajiyo maalinimada Khamiista ah oo kaliya bari ay ka harsan tahay ayuu ku wajahnaa gudaha magaaladaasi laakiin dib ayuu u dhacay 17 bishan ayaana la filayaa in uu gaaro gudaha magaaladaasi Laascaanood si uu uga qayb galo madaxweynuhu caleemasaarka madaxweynaha waqooyi bari Soomaaliya ee Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye kaas oo la doortay ama loo doortay madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya tan iyo markii ay aqoonsatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulkaasi xaaladda Laascaanood oo ay iyadu aad u tahay mid aad u kacsan iyo sidoo kale wararka ka soo kordha barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal aynu markan eegno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta kulan qarsoodi ah oo aan horay loo shaacinin uu ku dhaxmaray taliyaha sirdoonka waddanka Ethiopia Nuuruddin Amanidade ninka lagu magacaabo Ridwan iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Ridwan Hussein waxaa la tilmaamay in diyaarad gaar ah uu ka soo qaatay waddanka Ethiopia isaga oo yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka muddo saacado ah oo waliba aad u kooban ayaa la tilmaamay in kulamo kala duwan uu la qaatay madaxda hay'adda sirdoonka gaar ahaanna taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad iyo xubno kale oo saraakiil ciidan ay ku jiraan waxaa la tilmaamay in fariin uu ka siday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu si rasmi ah ugu dhiibay Mahad Salaad waxaana la tilmaamay in fariimahaas ay xambaarsanayeen dhowr waxyaabood waxaa la tilmaamay in taliyaha sirdoonka ee waddanka Ethiopia
ridwaan xuseen uu madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ama dowladda soomaaliya uu u keenay wada hadalsiin markaasi u dhaxaysa amaba UAE oo loola jeedo imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya, isla markaana dowladda soomaaliya ay joojiso fal kasta oo dambe oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaadi lahaa, sidoo kalena loogu qaadi lahaa guud ahaan lagu xayiri lahaa waddanka isu taga imaaraadka carabta. sidoo kale waxaa fariinta labaad la sheegay inay tahay in imaaraadka carabta ay soomaaliya la soo dabaasheen in muddo ah, gaar ahaan xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii uu talada qabtay 2022 ilaa heer intaan la soo gaaray. waxaa sidoo kale fariinta saddexaad lagu tilmaamay oo xoguhu ay sheegayaan in Ethiopia mowqifkeeda ay cadeysay kaas oo la xiriira haddii ay go'aansato dowladda federaalka Soomaaliya inay sii socdaan waliba ku qasbanaan doonto dowladda imaaraadka carabta inay guud ahaanba ka sii baxdo, in si toos ay ula safan doonto imaaraadka iyo Somaliland xilligan dhibaatooyinka xoogan la sheegay inay ka taagan yihiin oo iyadu sabab ay u ahayd in khilaafka imaaraadka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya uu soo shacbaxo. saddexdaasi fariin ayaa ilaa iyo hadda la sheegayaa, laakiin maxaa Ethiopia ku qasbaya inay soo kala dhaxgasho imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka Soomaaliya? warar kala duwan iyo xogo kala duwan ayaa soo baxaya taas oo ku aadan in Ethiopia haddii imaaraadka uu ka baxo gudaha Soomaaliya ay u aragto in looga itaalroonaanayo dagaalka Masar ay kula jirtay ee waliba dhinaca webiga Nile, taas oo xiriiro kala duwan markaasi la yeelanaysa maadaama imaaraadku uu qayb ka yahay meelaha uu ku sugan yahayna ay ku sugan yihiin ciidamada Ethiopiaanka ah iyo sidoo kale xubno diblomaasiyiin ah oo waddanka Ethiopia markaasi la tilmaamay inay ka socdaan. marka laga soo tago arrintan waxaa la tilmaamay in ridwaan xuseen oo ah taliyaha sirdoonka ee waddanka Ethiopia in safarkiisa degdeg uu ahaa, sidoo kalena isla degdeg uu uga baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, taas oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn sababta rasmiga ah ee ku kaliftay. wararka xilligan aad daawateen ee saaxiibayaal qaybaha kala duwan isugu jirana wixii ku soo kordha barnaamijyada wararkana dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa, kuwaas oo ay ka mid yihiin laascanood oo la ciirciiraysa ciidamadii ugu tirada badnaa oo ka yimid dhinaca Puntland iyo sidoo kale dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale la tilmaamay in ciidamo ka socda koofiya guduuda ama madaxtooyada Soomaaliya ay gaareen daqiiqada ka hor gudaha magaalada laascanood ee gobolka Sool, iyaga oo xaqiijinaya ammaanka guud goobta uu ka degayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo halka sida gaarka ah uu ugu tegayo gudaha magaalada laascanood ee gobolka Sool, iyadoo warar kala duwan oo soo baxaya ay durba tilmaamayaan in ciidamadu ay bilaabeen howlgallo ay ku doonayaan in guud ahaanba ay kaga hortagaan fal kasta oo liddi amaba amni darro ku keeni kara deegaanada SSC Khaatumo. xuduudda labada maamul ay wadaagaan SSC iyo sidoo kale dhinaca aaniraada Somaliland waxaa la warinayaa in iyagana ciidamadii ugu badnaa oo dhinaca maamulka waqooyi bari Soomaaliya ka socda ay wada gaareen saacadii la soo dhaafayna la arkayay hub culus oo ay magaalada ku dhex sitaan ciidamadan qaybaha kala duwan isugu jira iyo Somaliland oo la tilmaamay in ciidamo u soo dirtay xuduudda dhinaca halka lagu magacaabo Og oo iyadana ah meel ay si weyn isku horfadhiyaan labadan dhinac. wixii ku soo kordha idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya ee xogahaasi sala saaxiibayaal. haddii aad ilaa dhamaadka nala soo gaarteen waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan, saaxiibadana la sii wadaagtaan muuqaalkan, meel dheerna nala gaarsiisaan si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale.